shirgudoomiyaha Tian's Group Mr. Lin Juan ayaa sheegay inuu qusay xiriirka xumaada ee China iyo Mareykanka inkastoo madaxweyne Trump uu sheegay inuu isbedel ku sameyn doono dhawaan booqashadii aan ku tagay China waxaan arkay xisaad aad u fara badan oo Mr. Lin Juan isku keenay xaqiiqatan ima walwalinaysa cid waliba madaxweyne ka noqoto Mareykanka waxaa jira siyaasad dhaqaale waana qasab horumarka xagga ganacsiga oo ka tisqaada dawladaha anigu ma walwalsanin China iyo Mareykanku waa awoodaha dhaqaalaha dunida aad bay iskugu xiran yihiin si aan loo kala reebi karin ayay iskugu duntirmeen They are inextricably interwoven with each other. Except if the US and madaxweyne Trump si bahalnimo ayuu u weerari doonaa siyaasadda ganacsiga tusaale oo kale wuxuu kordhin doonaa canshuuraha alaabta dibadda ka timaada kolkaas isoo ma dhibaatoonaysid in canshuurta lagu kordhiyo alaabaha Mareykanka ma wanaagsana muwaadiniintiisa in fiiskaasi bedeli doono ayaan u filayaa kaliya maaha dhaqaalaha halka uu dhib ku gaarayo wuxuu saameyn doonaa muwaadiniinta Mareykanka ee iskood u shaqaysata It's not only about the economy, but also job opportunities. Entrepreneurship issues will all be affected. China way ka falcelin doontaa sax sida hore kugu sheegay maadaama China iyo Mareykanku yihiin awoodaha dhaqaale ee dunida way isku tiirsan yihiin kobaca dhaqaale ee China wuxuu kaalin weyn ku leeyahay dunida gaar ahaan Mareykanka xiriirka labada dal ee ka dhexeeya ma mid isku dheelitiranba oo dhexdhexaad xaqiiqdii weli Mareykanka ay ku sareeyaan dhaqaalaha dunida balse Mareykanka aad buu ugu baahan yahay suuqa China tusaale hal lagu daro hal way ka macno weyn tahay labada dal waa inay isfahmaan siyaasada nabadda iyo dhaqaalaha dunida ayaa ku jirta And it is significant to realize it. Now tell me, sir. Ishaq mudane meeqa qof ayaa dalxiis u qaaday? Have you just taken on vacation? 3,000 oo Spain ah, Bali Indonesia 10,000. Suuqeen dadkan dalxiis ku qaaday waa 20,000 oo qof. 10,000 employees traveling to Indonesia and Bali. In total, there will be 20,000 people attending the conference at Bali. You're taking 20,000 people on holiday to Bali? Yes, to Bali and Jakarta. Because it's the 21st anniversary of our company. Bali iyo sidoo kale Jakarta waa sanad guuradeyna waxaan u yeelay inaan raaco qorshaha wadada isku xirta ee dunida in dunidu dhaqan wadaag iyo dhaqan wadaag noqoto dunidu mid nabadeed oo dadkeedu is jecel yihiin meeqa kun ayay ku kacday meeqa lacag ayaa ku kacday safarkii China ee Spain 3,000 ee Spain 600 milyan oo lacagta China ayaa Spain sidoo kale Yurubna waxaan gelinay oo dakhliga u heshay 300 milyan oo lacagta China Amerikaanka qarashkaasi waxaan u bixinay intii ku dhismaan maxaa yeelay dakhligeena soo bixiyaan waa inaan u horaa markooda oo